macadka Samadoon ee cilmi baarista iyo istiraatiijiyadda ayaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ku soo gabagabeeyay tababar socday muddo 7 maalin ah. warbixinta magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdullaahi Maxamed Axmed. tababarkan oo socday muddo ku dhow isbuuc ayaa waxaa soo agaasimay macadka Samadoon ee cilmi baarista nabadda iyo istiraatiijiyadda waxaana ka faa'iideystay arday ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir. intii uu socday tababarkan ayaa waxaa ardayda lagu barayay doorka qorsheynta istiraatiijiyadeed ee horumarinta hay'adaha. Cabdirasaaq Yuusuf Ismaaciil oo kamid ah maamulka macadka Samadoon oo ka hadlay munaasabadda xiritaanka ayaa ka warbixiyay ujeedada tababarkan. waxaa maanta sharaf weyn ah inaan halkan ka furo xaflad lagu qabanayo tababar socday muddo 7 ah oo ku saabsan qorshaha istiraatiijiyadeed ee lagu baranay. runtii waa qorshaha istiraatiijiyadda barashadeeda waa qorshe waxa weeye maada aad iyo aad u baahan waqti dheer marka in lagu qaato laakiin saasoo tahay xoog baa la saaray waqti badan baa la geliyay 7 maalin la soo dhaafay in wax badan laga ogaado. xaqiiqdii istiraatiijiyad la'aan nolol ma jirto. istiraatiijiyadda waxay ka bilaabataa qofka gurigiisa wadankiisa ilaa iyo meel waliba marka meel waliba ku anfacaysa sida shaqadaada mashaariicda dawladda hay'adaha u shaqeynaysid noloshaada caadiga. istiraatiijiyadu waa wax oo hadii goor loo baahan yahay qofku inuu leeyahay. qaar kamid ah ardaydii ka faa'iideysatay tababarkan ayaa nooga warbixiyay waxyaabihii ay ka barteen tababarkan intuu socday. Programkan sidiisa dhan wuxuu ku saabsanaa maadada la yiraahdo strategic planning process. maadadaas oo maada aad u ballaaran inta badan jaamacadahana lagu dhigo laakiin si gaar ah programkaas ardayda ma aragtay 7 u socday loo qabanayay si loo sameeyo planning ama istiraatiijiyada fog ama istiraatiijiyada dhow. waxaan rabaa marka hore inaan qeexo waa maxay istiraatiijiyad. istiraatiijiyada waa stebiska ama wadada aad u maraysid inaad organizationkaaga aad ma aragtay ku determine garaysid oo aad ma aragtay go'aanada ugu dambeeya aad ku gaartid. asaga ayaa wuxuu u sii kala baxay ilaa 10 qodob. wuxuu ahaa seminaarkan mid aad ugu faa'iidno sida wada ognahay haddaan ardayda Soomaaliyeed waxaan ahnay dad oo balaanin wada leh balse aanan ogeyn balaaninkooda. gool ayaan leenahay goolkeena waxa waaye in oo balaanin la socdo balse balaanin ma lahan gool ayaan leenahay markasta waxa u ordnaa goolkeena kaliya ma ahan wax balaanin aan sameysano mala. alxamdulillah 6 biri kadib waxaan go'aansaday inaan balaanin sameysto. gool waa lahay goolkii baa ku socday balse balaanin ma laheenin. ardayda sideeda ahna waxaan u sheegayaa in la soo xiriiraan macadka Samadoon. aad ayay u mahadsan yihiin Samadoon iyo inta lagu sheebo. Awiil Sheekh Axmed agaasimaha macadka Samadoon ee cilmi baarista nabadda iyo istiraatiijiyadda ayaa ardayda kula dardaarmay waxyaabihii ay ka barteen inay bulshada dib ugu celiyaan. dhalinyarada runtii barnaamijkan ka faa'iideysatay dhalinyarada gacanta ka geysatay barnaamijkan inuu taabagalo in alla intii ka soo qaybshay barnaamijkan ugu horeyn waxaan ugu salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaam kadib runtii sharaf weyn bay noo tahay maanta inaad naga soo qayb gashaan xiritaanka barnaamijkan tababarka ah oo muddo isbuuca macadka Samadoon oo waday kuna saabsanay qorsheynta istiraatiijiyadeed iyo muhiimadda oo qorshahaas u leeyahay dhismaha hay'adaha dalkani. runtii waxay ahayd workshop aad u qiimo badan topiyo kala duwan aan ku soo qaadanay aan rajaynayo inaanu ka wada faa'iideysano dhammaanteynba. hawshana waxay ahayd hawl runtii macallin iyo maaragtay arday ma aysan ahayn waxaan kala faa'iideysanaynay meelo muhiimana aanu soo taabanay. waxaan u maleynaa waxaan ka hadalnay muhiimadda strategic plan uu leeyahay marka laga hadlayo shakhsiyaadka iyo hay'adahaba horumarintooda waxa uu leeyahay workshop noocaana iyo runtii mowduucan taabanaya iyo mowduucyada la xiriira nolosha bulshada taabanaya inuu macadku soo qaban qaabin doono. hada jeer macadka Samadoon wuxuu taagan yahay inuu u adeego bulshada Soomaaliyeed asagoo fulinaya mandatekiisa oo noqdo meel ay bulshada Soomaaliyeed ka helaan waxyaabaha dhisaya garaadka ummadda kana qayb qaadanaya horumarinta dalka. Cabdullaahi Maxamed warbaahinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland magaalada Muqdisho.